بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى ونكسن دمانتين من والبوء الدنيا كان جوكتان سؤال وانا صاحب وحكو سؤال واتان وراركي قد بيي عالمك إيو حالك إيو حاجين الدنيا ماشي مريسو قد بدنا وحاكمدا دولة ودن كمريكان كإيو جمهورية إسلامية إيران ومدح السهولة جرا دونالد ترامب قردو weerar afka ayuu ku qaaday dowladda waddanka Iiraan haddaba xaalka xaguu maraya barnaamijka ayaad ku daawan doontaan haddii alla ka dhigo miyay fashilameen wadahadaladii la doonayay dib markaas in la isugu laabto magaalada Islaamabad ee caasimadda waddanka Bakistan mise weli si gobonimo leh ayay u soconayaan madaxweyne Donald Trump ku guuleystay xabad joojintii uu markaas la rabay Lebanon in laga sameeyo si wadahadalada u sii socdaan dabcan inkastoo ay maalmo kooban tahay laakiinse su'aashu waxay ka taagan tahay ma jiri doonta xabad joojintaas oo Israa'iil ma fulin doonta barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa haddii alla ka dhigo ma dhaba in dowladda waddanka Iiraan dagaalkiis 40 maalin ee Iiraan iyo Israa'iil iyo Mareykanka u dhaxeeyay in lagu dilay khubaro dhinaca nuclear u qaabilsan waddanka Mareykanka khubaradaas ilaa 10 qof ayaa la raadinayaa goorma dad ugu wardambeysay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa haddii alla ka dhigo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ibaadeeriyaasha caalamka oo qaati kala taagan maxaa u dhaxeeyay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan haddii alla ka dhigo wadamada reer galbeedka mas'uuliyintooda oo markii ugu horeysay madaxweyne Donald Trump ammaan culus ku jeediyay waxay ka wadaan mid ka mid ah mukhaabaraadka dowladda waddanka Mareykankana sir culus ayuu fashilay maxay tahay barnaamijka ku soo qaadan doonaa haddii alla ka dhigo Israa'iil iyo wadamada khaliijka waa dalab gaar ah oo ka dhan ah dowladda waddanka Mareykanka u gudbiyay madaxweyne Donald Trump barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa haddii allaha weyn ee waaxidka ah ee naxariista badan u raali ka noqdo soo dhawaada saaxiibayaal waxaan sayidin ka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay oo kanaalkeena soo booqato fadlan subscribe la wadaag saaxiibadaada muuqaalka aragtidaada ka dhiibe aad baad u mahadsan tahay saaxiibadayadii hore haddaad ka mid tahayna mar walba waxaan ku leenahay guuleyso oo beenku kaa ogsooni marka ugu horeysa aan ku hormarnay madaxweyne Donald Trump iyo dowladda waddanka Iiraan xaalad wiirsi ayaa ka dhaxaysa sida xaaladda mararka qaar ay u degan tahay oo wadahadal la socdo iyo waxba dhaqaaqay loo leeyahay ayaa mar dowladda waddanka Mareykanka waxay sheegaysaa dowladda waddanka Iiraan ay ka carooto laakiin waxaa la leeyahay hadda wadahadaladii la doonayay ee markaas in dib ay looga bilowdo waddanka Lebanon ee waddanka Pakistan inay uga bilowdaan wadahadaladaas rajadoodu way fiican tahay waana suurtagal ayaa la leeyahay ilaa iyo hadda soo socota in markaas dib looga laabto magaalada Islaamabad waxa kaloo jirta in dowladda waddanka Iiraan ilaa iyo hadda marna aanay ka soo bixin wax wadahadaladaasi dhibaato ku ah laakiin dowladda waddanka Mareykanka iyo inta badan mas'uuliyiinteeda iyo maamulka gumaystaha Israa'iil walwal tiro badan ayaa ka muuqanay matalan xogayaha arrimaha dibadda dowladda waddanka Mareykanka Hegseth wuxuu leeyahay dagaalkii aan galnay wuxuu dhahay wax walba oo aan sameeyno iyo ciidanka Mareykanka iyo dadaalka aan wadno waxaas wuxuu yiri warbaahinta caalamka iyo kuwa Mareykanka dhamaantood ma arkayaan ayuu yiri si weyn ayuu warbaahinta u dhalilay waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan militariga waddanka Mareykanka laakiin qaar badan oo khubarada reer galbeedka iyo Mareykanka kamid ah waliba Pentagonka waddanka Mareykanka ama wasaaradda gaashaandhigga walwal tiro badan ayaa ka jira iminka waxaaba loo dhiibay in hubka soo saarka iyo dhaqaalaha Pentagonka ee militariga Mareykanka nin bilyaneer ah oo asalkiisu Israa'iil yahay ayaa gacanta loo geliyay sida la leeyahay marka wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka iminka ayaa loo yaabaa khubarada qaar waxay leeyihiin Mareykanka dagaalkan waa sidoo u bilowday oo Donald Trump wuxuu rabaa wixii dhacaba ha dhacaan xisbigiisa dil raba laga guuleysto wax walba ha socdaan laakiin ilaa doorashadiisa ay ka soo dhawaanayso markaas uu rabo qorshuhu sidoo yahay sida khubarada durasayaan dagaal ballaaran inuu qaado laakiin dowladda waddanka Iiraan ilaa iyo hadda qodobadeeda ay ku dhagan tahay waxaa jirto kulan xasaasi ah oo dhex maray taliyaha militariga waddanka Pakistan Munir ninka la yiraahdo iyo sidoo kale janaraalada ciidamada dowladda waddanka Iiraan ugu sareeya haddii ay ahaan lahaayeen ciidanka ilaalada kacaanka iyo guud ahaan militariga waddanka Iiraan si fiican ayaa loo wada hadlay waxaana la gorinayaa inkastoo ilaa hadda warbaahinta aan shaacinin in taliyaha militariga waddanka Pakistan uu la kulmay hogaamiyaha ugu sareeya waddanka Iiraan Ayatollah Mujtaba Ali Hussein Khamenei laakiin haddana saraakiil sare oo militariga Iiraan ka tirsan ayuu markaas kulan la yeeshay sida uu baahiyay telefishinka dowladda waddanka Iiraan madaxweyne Donald Trump marka goordhow uu hadlay wuxuu leeyahay Iiraan wuxuu leeyahay haddii ay wada hadal diido
guud ahaan buu u dhamaynayna mar buu ku leeyahay mar labaad wuxuu leeyahay maya iiraan wada hadal ayay ogoshahay mar kale wuxuu leeyahay maya iiraan way is adkaynaysa laakiin talaabaanu wadnaa dabcan hadda wuu isagii lahaa qugtay dekedaha iiraan baa la xirayayo gacanka umus wax ma marayaan waxba kama jiraan maraakiibtii iiraan iyo kuwii caalamiga ah dabcan intood badan sidooda caadi ayay u socdaan inkastoo arrintaas way ku dhawaaqeen oo ciidan iyo maraakiib waxa lasoo diyaariyey laakiin haddana waxaas cid u joogsatay ma lahan hurmusna inta badan waxaa maraya maraakiibta dowladda waddanka iiraan kuwaas oo dabcan shidaal u wada dhinaca iyo haddii laba ku roon yahay waddanka la yidhaahdo shiinaha iyo wax noocaas dowladda waddanka shiinaha iyo ruushka iyagu waa ka digeen oo waxay maraykanka ugu digeen maraakiibtooda iiraan dekedeed wax ka soo qaadaysa iyo kuwa hurmus marayayo in la dhibaatayo dhinaca kale wargeeska la yidhaahdo the economic la yidhaahdo iyo wargeeska kale isaguna la yidhaahdo newsweek ayaa iyaguna sheekooyin cajiiba warinaya dowladda waddanka maraykanka washington post ayaa xitaa ka mid a new york times baa ka mid a inta badan warbaahintu way warinayaan maraykanka waxay leeyihin marka يعني go-aankii donald trump ee ahaa in guud ahaan iiraan la godoomiyo iyo marinka hormus in la xiriyo arrintaas waxaa leeyahay niyadjab culus ayay ku keentay dowladda waddanka maraykanka gaar ahaan madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump marka inkastoo magac ahaan uu sheegay laakiin haddana ilaa iyo hadda ma jiraan wax rasmi ah oo uu hirgeliyey maxaa yeelay iiraan haddii la godoomiyo يعني بدأ يدكده هذا حبده يجين متجرته محل إسكون مريا مركب أول شيء سؤال كاسي مريسا والله بضل إنع حلالي هاي دونالد ترامب laba wajah ayuu isticmaalaya wejina wuxuu ku isticmaalayaa dadka iyo meel baan xiraya iyo waxbaan weeraraya iyo iiraan waxba ma haysato iyo dhulkan gelinayo waxaas ayuu qufaya si aan looga mashquulin yani heshiisyad isagu hoosta ka wado oo bakistaan iyo loo dhiibayo turkiga iyo wadamadan kale iyagoo ay ka shaqaynayaanoo la isla wado si aanay dadku uga mashquulin wuxuu dadka ku mashquulinayaa waxaybaan yeelaya iyo iiraan baan baabi'inaya iyo iiraan waa is iibtay iyo wax noocaasa ayuu qufaya odoga dhinaca kale wargeeska la yidhaahdo the economicist ayaa sheeko cajiib ah qoray waxaa laleeyahay newsweekna waa qortay warkaan sheegayo toban qof oo khubarada dhinaca hubka nuclearka ah ku takhasusay ayaa dowladda waddanka maraykanka ilaa iyo hadda laleeyahay xitaa mar la weydiiyey gabadha la yidhahdo kortariin white houseka afhayeenka ka ah la weydiiyey xitaa waa ka gaabsay inay sheegto marka toban qof oo khubaro ah oo nuclearka ku takhasusay oo de maaha qof caadiya waa dad يعني هانتي ومريكان كلها هي ويا قف كمان كانوا يرادو هبل وتخصص كيسو نوكلير إيو خبير قف كيميكال مركو هاي الدنيا حتى ينو السفرة ولا يلا عليه أنت بدن نما كان مركو حلالية وطبعا قف أيوة عليه وطبعا قف أو خبراء oo ku takhasusay samaynta nuclearka iyo horumarintiisii waxa caynkaas oo kale taa qaar ka mid ah markuu warbaahintu waxay leeyihiin nimanka ma la afduubay mise dowladda waddanka maraykanka hoos ka dartay oo wadamo waxaa jirta hub nuclear loo samaynayo waan isweydiinaya laakiin goorta nimankan qofkii ugu dambeysay la arko dad ugu dambeysay ayaa leh ninkii ugu dambeysay waxaa dad ugu dambeysay sida la leeyahay in la arko ay shaashada ka soo muuqdaan 2023 sanadka afraad nimagaas lama arag baa la leeyahay dabcan marka eheladoodii iyo ayaa warbaahinta la hadlaysay siday muuqato marka dowladda waddanka maraykanka nimankii marka halkaasay joogaan iyo annagaa meel u dirnay iyo ilaa hadda shib iyadana waxay leedahay gabadha afhayeenka ka ah ee aqalka cadda waddanka maraykanka de waxay leedahay laamaha ammaanka waddankeena ayaan ka war sugayna anigu aan arrintaasay ma rabo inaan galo marka ma israa'iil bay joogaan oo halkaas hub nuclear bay ka samaynayaan ma waxaa jirta qaar kale oo dee caalamka oo dee dowladda waddanka maraykanka dee miyay iyadu laftirkeeda ma bariga dhexe nuclear ka samaysanaysay ilaa iyo hadda waxaa laleeyahay khabiradaas dowladda waddanka maraykanka waa laga war sugayaa oo 2013 nimankaas khubarada dib looma arag qaar ka mid ah marka waxay leeyihiin qaarkood waxaa suurtagal ah inay joogeen maadaama dee dowladda waddanka maraykanka saldhigyo culus ay ku lahayd gobolka bariga dhexe qaarkood waxaa la warinaya inay joogeen waana suurtagal in ay joogeen saldhigyada baxrayn iyo kuwait iyo sacuudi carabiya inay joogeen ayaa dhici karta marka maadaama ayagu dee khubaro hub ay ahaayeen ayaa dhici karta halkaas in lagu dilay laakiin dowladda waddanka maraykanka ay qarinayso maxaa yeelay haddii ay soo baxdo dee khubara in la dilay oo ay dhinteen waa wejigabax kale oo dowladda waddanka maraykanka ay wajahayso laakiin ilaa iyo hadda caddaymo rasmi ah dowladda waddanka maraykankana ma bixin laakiin durba waxaa la ishaafalataynaya qaarkood dabcan in weeraradaasay ku dhinteen oo maadaama ay saldhigyadaasi waaweynaayeen hub iyo istiraatiijiyad kale waxyaabad badanna ay jireen waxaa laleeyahay waa suurtagal in weerarkaasay ku dhinteen marka wayna isla eegi doona wixii kusoo kordha laakiin in 11 qof ama 10 qof oo khubaro ah
oo weliba dhinaca nuclearka khabiir ku ah in muddo 4 sano lala yahay oo qoyskooda ay la yaaban yihiin oo wax kale sida la leeyahay marka waxay ku soo kordho waan idinla wadaagi doonaa dhinaca kale haddii aan laba ku roon yahay waxa weeye waxaad la socotaan libnaan xabad joojin ayaa ka dhacday dabcan inkastoo goordhow madaafic iyo duqeymo culus ay dhacday laakiin haddana 10 maalin weeye laga bilaabo jimcaha ilaa iyo 10 maalmood dabcan waxay u badan tahay isniinta soo socota imeelahaas ayay dhammaanaysaa marka intaas marka waxaa laleeyahay si ay wadahadaladii ay hor u socdaan iiraanaa diiday sida laleeyahay in wadahadalada hor u socdaan ilaa in xabadda libnaan ka socota la joojiyo mooyaane marka netanyahu marka trump wuxuu ka dalbaday marka in haddii laba ku rooyay xabadda uu joojiyo muddo 10 maalin ah marka netanyahu wuu ogolaaday laakiin ogolaashaha iskama imaan ciidanka maamulka gumaystaha ee libnaan galay تحت الجحيم ay ku jiraan baa laleeyahay yacni weerarada oo meel walba looga soo baxayo duqeymaha ku dhafo ka dhaqaaqda xaalad waxay ku jiraan ciidanka sida laleeyahay aad iyo aad u yaab badan oo hadda yacni muddo meel 10 kilomitir ilaa 20 kilomitir ah oo koonfurta waddanka libnaan magaalo horta la yirahdo baytujaliil waa ku gacan galan ciidamada gumaystaha meel marka 10 kilomitir ilaa 20 kilomitir ayaa waxaa la isugu geeyey yacni 100 kun oo askari wax ka badan markaasaa marka haddee raggan hadda inay fiirsadaan intay fiirsadaan ayay droniska iyo gantaalada iyo weerarada tooska ah dukum daakum ayaa laga dhigay marka weliba mas-uuliyiin sare oo dabcan jaliisha saddexda jaliisha sare jaliisha hoose jaliisha dhexe saddexda mas-uuliyiintood aflabdi ayay dhawaaqeen waxay leeyihiin awoodda aan aragnay ee hadda xoogaga gobnimo doonka ee reer libnaan ay la soo baxeen waa nagu cusub tahay waxaan horay u aragnayba ma ahaba sidan badan moodaynba meeshan howl kale ku jirtay leeyihin yacni aad bay u qaylinayaan waxay leeyihiin qaarkood dabcan sida wakaalada wararka maamulka gumaystaha israa'iil ka soo baxda ee kaan la yidhahdo ay warinayso mas-uuliyiin ayaa ooyaya waxay leeyihin waxaan aragnay waxa guryaheennii ku dhacay waxa ciidankeennii ku dhacaya waxaa dhacay waxay leeyihiin wax aan ku tashanay iska daaya wax aan ku fikirnay xataa ma ahay leeyihiin yacni ciidanka daqiiqad fursad maba la siinayaba حتى يعني وحال ممنوعين بليين يعني عيدن كسد اللي جالسين شن أسكري ومرس لا تجاري الله عنكم عيدن كتان كذا دي هوس كجلنا صدق كلا تو حاول صوب بدك الحقوق غير لبنان وحيابة يعني هو تانجي قبل هذا تريبة مركب وحيلاقي مسؤولين أنت أبي هذا يعني عيدن كل نبات أقوى لنا عجلة خبر بدن بان هذا سبحان عادة كمان برجوميستا إسرائيل ما يقولوا حليين نتنياهو وصدر رئيس الوزراء وما عنكروا ودك كرسونا مله ميل في يوم مله هم ضد كنا وقار قحية أو كرسونا ذي كنا ماتي ولما سفارها القلبيتك مش أسيكويا والوجوه بتسد لليه مت عندك واحد جرته حتى ضد أنا شو ده أنت إسكت توران أو إسرائيل نمت إسرائيليين أو إسرائيل ماذا آمنين ayaa waxaa dhacay markii dambe in xaaladdu markay qaraaraatay awoogayba Portugal ahaan jiray ayagayba waxay ahaan jirtay Faransiis awoogayba German ahaan jiray yani abtirsiin baa la bilaabay hadda dadku marka yani de garoonkii Ben Gurion Ludni isaguna si xun baa loo duqeeyo inta badan ma shaqeynaya marka Israa'iil marka waxay ku jirtaa baa laleeyahay xaalad adag ayay ku jirtaa laakiin xabad joojinta 10 maalin ee marka Israa'iil ma fulin doontaa 10kaas maalin sidoo ma fulin doontaa khubaradu waxay leeyihiin maya waa la arki doonaa iyagoo xabad joojintii jabiyey oo meel weeraraya oo goob duqeynaya oo dad rayida iyo diyaarado drones waxa laakiin xabad joojintan hadda socota laga bacodsan iyagu dabcan ilaa ay hadda xogaga reer Libnaan warka ma soo bixin laakiin iyagu maadaama Iiraan ku daabay yihiin inay ogolaadaan ayay u badan tahay Sheekh Naim Qaasim oo horey u hadleen waxa uu sheegay iyagu inay Iiraan ku gowracan yihiin oo xabad joojintan ay sidaa ku qaadanayaan marka haddii marka xabad joojinta ay burtooya ugu daran tahay yacni waxa Israa'iil iyo shacabkeeda xaalad culus bay ku jiraan dadku inay hudheelo joogaan oo haddii laba kuuro iyo hoteelada hataa gandaalada Iiraan ay dumiyeen xaalad dhaqaale xumo iyo yacni nololeed aad u liidata ayay ku jiraan dagaalkana sida muuqata waa dheeryahay bal ee Netanyahu hataa waxaa la warinayaa inta xabad joojinta Libnaan ay ka jirto in Suuriya iyo Gaza uu dukum daakum ka dhigi doono oo weerarku halkaasi u bedeli doono taas qaar ka mid ah khubaradu ayaa iyaguna warinaya waa hagaag marka waslaadka dad wax ku soo kordha arrintan laakiin dhinaca kale dalalka Turkiga iyo waa sheeko cajiib la moogtahay Turkiga iyo Masar iyo Turkiga iyo Suuriya iyo Urdun ayaa waxay ku leeyihiin يعني waxaan sameeynaa tareen dhulka hoostiisa mara oo cajiiba oo isku xir markaasay wadamada Turkiga iyo Suuriya iyo Urdun isku xiro waa iskaashanayna dhinaca kalena Turkiga iyo Masar iyo Pakistan iyaguna waxay leeyihiin Sacuudi Carabiya waxay leeyihiin ciidan xoogan baan u dhisaynaa waa gobolaan war horta yaa wax dhista
turkiga horta ma la aamini kara laftirkiisa turkiga waa meeshii keliya ay ku yaalaan shirkado hub soo saara oo ay maamulka gumaysto ay leeyihiin erdogan waa hogaamiyey ugu horreeyey oo muslima oo dhulka israa'iil ay xooga ku haysta tiri shan mar booqday waaye waa ninka mala socotan hadda dagaalkii qasir intuu soconayay waxaa jirtay 66 milyan oo yani lacaga ayuu 27,000 oo bambooyin ah oo culus oo turkiga lagu sameeyey ayuu israa'iil ka iibsaday liajli si looga gumaado shacabka magaalada gaza iyo sidoo kale reer lebnaan يعني وليبها حتى شركة إسرائيل قرطين جريرة اللي رادوا قدس ليوسا قرطين يعني مركا تركي مركو حلالي هاي وبول حفتوه يوحدتكو أخرين مركا من كلا من تركيا يوحس آميرا أردن لماذا دابا مريكا جواسيس ويهين لماذا دابا معها ودم إرادة له بل تركيا بحقا لقات أردن إيضو بياه إيو كورنتدا إيو شبانكا وح أردن وقلك رير فلسطين وحي كجري بلنقضها حقوق قميستو حقوق قاتين أيا إيقون العقل قسي قضايا مثلا أردن كورنتدا إبياه إسرائيل ayaa siisan yani waa hantidii shacabka muslimiinta ah ee reer Gaza ee reer Falastiin ayaa la dhacaya kuwiiba iyaguna lacag ku sii iibsanayaan marka waxaas marka waa sheeko cajiib marka Israa'iil waxa wala socotaa waxaas lagama gadayo waa hagaag dhinaca kale marka nin mukhaabaraadka waddanka Mareykanka ka tirsanaan jiray hore waliba sarkaal ahaa oo Stephen la yiraahdo ayaa telefishinka la yiraahdo Sky News qaybta Carabiga ayaa waraysi siiyay sheeko cajiib ah qoray ninkaas wuxuu leeyahay waxa uu si weyn uga hadlayaa waxyaabaha Mareykanka iyo Iiraan ay aad isugu dhibsadeen oo yani la isku mara laayahay waxyaabaha aad uga adag saddex qodob ayuu ninkaasi ku sheegay wuxuu yiri markuu ugu horreeyay wuxuu dhahay waxbaan isku hay waxa kamid ah horta sidee laga yeelayaa xoogaga ay dawladda waddanka Iiraan taageerto ee marka gobolka bariga dhexe jooga see laga yeelayaa maxaa laga sameeyaa dawladda waddanka Mareykanka waxay si weyn u codsanaysaa kow Iiraan in raggaas ay guud ahaan xiriirka u jirto ay ka takhalusiso hubkeedana ay ka ceshito kow waxaa kaloo ay si weyn u doonaysaa dawladda waddanka Mareykanka oo ay soo bandhigtay barnaamijka hubka nuclearka Iiraan muddo 20 iyo dhowr sano in dib loo dhigo yani kubcintiisa isla markaan Iiraan aan laga arki karin muddo 20 sano in ay ku hamiso samaysashada hub nuclear arintaas waa qodob kale taagan weeyaan marka Iiraan marka labada qodob Mareykanka labada qodob ku dhigay ay ku dhigayaan kow nimankan ilaa مثلا Hezbollah iyo Houthi iyo Hamas iyo Iraaqiyiinta iyo xoogagan gobolka joogo ee ay Iiraan taageerto guud ahaanba in meesha laga saaro ayuu Mareykanka ayuu ku dhigan yahay iyo hubkaas nuclear labada qodob ayaa uga adag waxyaabaha dawladda waddanka Mareykanka ay ku gorgortamayso laakiin Iiraan iyada qodobo kale ayay keentay waxa iyana ay keentay oo Mareykanka ku adag waxay leedahay jimciyada qurumaha ka dhaxaysa tagayna golaha guud ee ammaanka hortood ayaa wax ku saxiixaysa weliga inaad Iiraan weerara doonin weliga inaad Iiraan weerara doonin kow guud ahaan cunaqabateed in la ka qaado waxa kaloo ay rabnaa wax allaah wixii hanti ah oo dibadda naga yaalo inaad magaranaysaa galaba ku rooyahay in loo fasaxo inaanay dawladda Mareykanka weligeed ka shaqayn doonin wax lid ku ah amniga dawladda waddanka Iiraan hal yumkin suurtagal ma tahay way adag tahay Iiraan marka qodobadeed waxay ka tiri horta nuclearka waa ka hadli karnaa oo 20 sano iyo 30 sano waxa tiraadaanba waa yeelaya waan ogolahay laakiin aniga qodobkaas kaliya ka tanaasulaya adiga waxa ka tanaasuleysa kow guud ahaan mas'uuliyadda Mareykanka ee gobolka bariga dhexe gaar ahaan khaliijka ku yaala waa in la xiraa albaabada loo laabaa mid labaad weynad qaramada midoobay horta ka sheegtaa 20 sano maaha forever inaadan Iiraan weerari doonin weerar Iiraan ka dhanaan ka shaqeyn doonin qodobka labaad waxa uu yahay lacagiina loo sii deynayo صدقينا خلينك اللي جحرو يصدق كلته إن ولقى إيران ويرر يصدق قلب ويان إيران ولقى الويرر دونين صدقينا القمر كبار يقول الحرو حنتو نجم مكان ومريكا كون سيدينيو وحكى مريكا كمركو حلاه لو قلب ويكون أدقين قلب كوريو إن جود أهم القمر كبار يسيب جو Mareykanka meeshu waa ka soo qaxay Iiraan baa ka soo saartay waa muslimiinteeda like marka arintaas Mareykanka waa diiday laakiin waxa uu soo dhaweeyay cunaqabateynta inuu qaado iyo in lacag wixii Iiraan laga haysto fasaxo arinta kale qaramada midoobay horteed ku saxiix ma yeeli karo Mareykanka because Mareykanka Israa'iil maamusho Israa'iilna inta maanta caalamka islaami joogto oo wadnaha farta kaga haysto waa laba ku rooyahay waa waddanka Iiraan weeyaan Iiraan iyaduna waxay miiskina la soo saarin ku tilmaantay horta ragga iyadu way taageerto oo Hezbollah iyo Hamas iyo laba ku rooyahay xogaga reer Yemen Ansarullah waxaas waxay leedahay horta wax adiga ku yaala iyo wax adiga aad ka hadli kartid ma aha adigu waxa ka hadashaa wax adiga naga dhaxay laakiin cid aan taageerayo iyo cid aan taageerin adigu halku talama marka arintaas waa taas laakiin wadamada khaliijka
iyo Israa'iil ayaa iyaguna qodob gaar ah dirsaday oo Maraykanku ay ku qasbeen arrintaas sidaas inay u dhacdo. maxaa yahay qodobkaas waa isla qodobkii aan sheegaynay oo ahaa labadaba Israa'iil iyo wadamada khaliijka laf u gashay ku noqday weeye. qodobkaasi waxa weeye qodobka oranaya Iiraan waa inay gacanta kala baxdaa guud ahaan xoogaga gobolka ka dagaalamaya. wadamada khaliijka waxay leeyihiin cid xabad nagu riday ma arag, nimanka way naga adkaadeen dee. waad la socotaa Yaman 30 dowladood baa lagu weeraray Xuutiga 9 sano oo dagaal kadibna iyada oo la qaawan yahay oo la isnacay ayaa dowlad walba maalin cararta. yacni Libnaan warkeeda ba iska daa ida Israa'iil ma halkaa ugu jirtaa iyada. xamaasna waa kasii daran tahay. marka waxaa la leeyahay nimankaas Israa'iil iyo khaliijku waxay isku damac ka noqdeen nimankan wakalaa oo Iiraan ay yiraahdaan wakiilana ma ahane raggaasu dee rag isdifaacayo wadamadooda xoog lagu haysto weeye. adduunka waxaan ku noolnahay ninkan xoog leh oo guri dad xoog ku degan haddana isagu dulmiyo iska dhigay qof madluuma. Soomaali baa laga arkaaba nin guri dad intuu yimaado isagoo lacag wato nin gurigiisa la iga bax oo ku kordhiibsanaya. macajiib marka qodobkaas ayay kula dalbanayaan. laakiin maxaa suurtagal ah dabcan Iiraan waa laga yaabaa 20 sano inay ogolaato inay aad hoos ugu dhigto bacriminta uraniumtada. dabcan ilaa iminkeeba 20 iyo dhowr xabo nuclear haysata Iiraan sida la wariyo 20 sano waa biyaa dhintay aan loo weeyo. taa bedelkeeda cunaqabataynta laga qaado lacagteedana loo fasaxo labadan qodob waa la siisan karaa. Maraykankana sanadiisa inuu gobolka bari dhexe ka guurama yeelayo because carabta waa xoolo wala dhuuqaya isagoo qodobka ma yeeli doono. weligii inuu Iiraan weeraro doorin kama shaqeyn doono. arrintaasna ma dhici karto maxaa yeelay iyadana Israa'iil guntiga ugu jirto. marka taana ma la qaadan karo. marka ninkaas marka wuxuu leeyahay arrintaas aad bay u culus tahay buu leeyahay oo hol sahlan maaha. dhinaca kale xoogaga reer Yaman ninka hogaaminaya Cabdilmaalik Badruddin al-Xuuthi la yiraahdo oo isaguna hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha iyo gobonimada iyo xigmadda iyo xirfadda dowladda waddanka Iiraan iyo xulafadeed. waxa uu sheegay in ay marka horeba ay ahaayeen dad ansaar ah oo wax gargaaraya. waxa uu sheegay in xabad joojinta Iiraan ay qaadatay inay la qaadanayaan maalinta Iiraan ka baxda inay ka baxayaan. waxaa kaloo wadamada carbeed ugu digay inay ka joogaan taageerada ay siinayaan ciidamada maamulka gumeystaha Israa'iil iyo Maraykanka. waxa uu ku hanjabay haddii dadaalada ka dhanka ah Iiraan iyo xoogada gobolka ay sii socdaan gacanka baaba'almada badda cas iyaguna in albaabada loo laabi doono. awooddaasna waa leenahay guryadan ku ixtiraamayna ma jirto. marka taasi halka ayay iyaduna taagan tahay. qodobka kale waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump iyo nimankii haddii laba kuurooya baadiriyaashii ayaa madax iskuula jira. waa aniga idiin sheegayo maalinkood wuxuu yiri ciise masiixan ahay buu yiri nabiyullaahi ciise calayhi salaam xaashaa lillaah. markaasaa de baadirigii kaniisadda katoliga talyaaniga ninka ugu sarreynaa iyo Trump baa isjafay. hadda marka lacag hadda kor uu ku deeqay 12 milyan ayaa kaniisad ku taalo gobolka la yiraahdo Miami ayuu yiri lama siin karo wure kuna nabi ka soo horjeesadeen imaba ixtiraamayaan anigu lacag baan siiyaa. wuxuu lacagtii aan siiyay 12 milyan ahay waa hakiyay buu laba siin karo. marka Trump waxaad moodaa albaab kale oo qaldan inuu aad u garacay. maxaa yeelay xilligan hadda la jiro oo lagu jiro ma ahayn inuu de masiixiyiinta iyo sida baadiriyaashiyo waxaas inuu isku taataabto ma ahayn. laakiin odag waxaa la leeyahay xaalad kale oo culus ayaa lagu halagalay. arrintaas marka waxay keentay in dad badan oo Kirishtaan ahaa ay aad ugu soo horjeestaan Donald Trump. marka oo weliba ninkan kaniisadda talyaaniga ku taala katoliga jooga nin kaftama maaha. waa nin la oran karo 1.2 bilyan oo Kirishtaan ayaa ninkaasi ku xirayaan ku oranayna ayuu wuxuu yahay hogaamiye ruuxi uu yahay. marka arrintaasi Trump waxaa la leeyahay aad iyo aad ayuu uga hoos baxday. dhibaato badan waa uu kala kulmi doonaa sida qaar ka mid ah warbaahintu ay warinayaan. marka warasleega doona bal wararkan iyo xaaladdan wixii ku soo kordhay iyo bal wada hadalladan iyo qodobada la isku hayaan hadda idiin sheegay waa saddexdaas qodob baa ugu weyn. waan arki doonaa wixii kordho. waxaa laga yaabaa in xabad joojinta Donald Trump gor waxa uu sheegay in xabad joojinta la sii kordhin doono waa haddii buuri dowladda waddanka Iiraan ay diyaar u tahay. xabad joojinta waqtigeeda wuu sii dhamaanayaa jimcaha soo socda ayay ku eg tahay. marka iyadoo laftirkeeda kordhinteedii waxyaabaha hadda guddigu dabcan Bakistan ra-iisul wasaaraheediina waxa uu marayaa dee magaranaysaa Qatar iyo Sacuudi Carabiya iyo Turkiga iyo Masar halka wasiirka taliyaha ciidankana uu markaa waddanka Iiraan joogo. dabcan fariin gaar ah ayaana loo dhiibay taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda waddanka Iiraan sida qaar ka mid ah muxalliliintu ay aaminsan yihiin. aad mahadsantihiin saaxiibadayo mar kale dib intaan u kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.